lagu qoondeeyay inaan ka warramo oo ah xaqa gabadha muslimadda ah. islaamku sidiisaba inta dadka dhadig iyo lab loo kala saaro midba xuquuq loogama doodi jirin. islaamku dad muslimiina bay ahaayeen oo xuquuq wada leh. qofka muslimkii ama nin ahaada ama gabadh ahaade xaquu buu lahaa, hadduu caruuriyey, hadduu guri joogo oo dad isqaba ay yihiin, hadduu aabbaye iyo hooye, hadduu waalid iyo yani dad xuquuqdooda isku si looga warramo bay ahaayeen. laakiin waayadan dambe galbeedka afkaarta inagaga soo faaftay ayaa waxaad moodaa inay soo abuureen waxay u tilmaamaan dadka muslimiintii inay yihiin kuwo xaqa gabadha muslimkaa ku tunta, islaamkuna inuu gabadha muslimaddaa xaqirayo. waxay noqotay ilaa xad maalan wadannada yurub qaybo kamidaan soo maray amaan joogay, marka aad aragto sida ay la dhaqmayaan dadka waxay rumaysan yihiin markuu qof muslima ama qoys muslima u yimaado oo gabadhuna xijaaban tahay, odaygii ama qoyska odaygiisiina uu la socdo, kaanama uu qof wato uu gumaysanayey oo waajibaadka ugu horeeyay dowladdu qaban lahayd ay tahay in laga xoreeyo. waa caqliyad lasii rumaysan yihi oo waxa koowaada lagu dadaalayo barnaamijtan sida loogu dhigayo waxa kan kaanamaa ninka kani dad u adoonsaday uu iska watay oo loo baahan yahay in degdeg looga xoreeyo. waxaan leenahay intaanan ka warramin islaamku iyo sida uu arkayo gabadha, waxaan jeclaa inaan taariikhda dib ugu yaro noqdo, waayo taariikhdu waa weelka bini aadamka dhacdooyinkiisa sida ee u kala markhaati fura. taariikhda aan dib ugu noqonaya waa taariikhi ilcaalam iyo gabadhu siday dunida ku ahaan jirtay iyo islaamku wuxuu ka bedelay iyo reer galbeedku waxay ka bedeleen. taariikhda caalamka markaynu dib ugu noqonno, xadaaradda reer galbeed waxay sheegataa inay ku salaysan tahay xadaarado hore oo Greega iyo Romanisku ay lahaan jireen inay dhaxashay dabeetana ay tatwiirisay ama ay horu marisay. aan taariikhda markaa dib u raacne sidee u ekaa xaalka dumarku marka taariikhda caalamka dib loogu laabto. waxaa la tilmaamay yunaaniyiintii ama Greegii hore gabadha agtooda waxay ahaan jirtay shay la iibin karo oo suuqa lagu kala iibsado, aan wax xorriyadana lahayn. waxay ahaan jirtay maalan magaalada la yidhaha Sparta oo ka tirsanayd Greegii hore magaalooyinkiisii waaweynaa ka mid ah ayaa dadkii deganaa dumarku waxoogaa xuquuqa siiyey oo waxaa loo ogolaaday gabadhu inay waxyaro dhaxli karto iyo waxaa loo ogolaaday nooc min ahliyati tacaamul, ama inay wax iibin karto ama wax gaban karto ama wax bixin karto oo ay mucaamalaadka ama dhaqanka maalmeedka inay ka qayb geli karto. falaasafadii waagaa joogtay baa aada u xanaaqday oo ka xanaaqsan magaaladaasi xuquuqda yar ay bixisay. magaalada xuquuqdan intay fakereen ismay odhan gabadha xaq siiya ee dhibaata qabsatay oo magaalo dagaal ku weegaaranyay buu ahaa. dabeetana raggiibaa intii badnayd frontka dagaalkay joogeen. waxay taasi sababtay magaalada wixii camal ka socday shaqo ka socday inta badan inay qabtaan dumarku. laakiin aqoon-yahanka kuwii u sheeganayay marka oo misaal ahaan Aristo waa filosof inta badan qoladiina dugsiyada tagtaa laydin dhigo filosofadii waaweynaa laydinka dhigo. Aristo markuu ka warramayo burburkii magaalada ku dhacay wuxuu dhahaa sababteedu waxay ahayd xorriyadii iyo xuquuqdii ay gabadha siiyeen ayaa dumisay buu leeyahay Sparta meesha la yidhaahdo dhammaanteedba. waxaynu odhan karnaa, waxaan jeclahay inaan aada u soo koobkoobo. Socrates maalan oo filosofiyada ugu waaweyn ay ka dambeeyeen markaa Socrates wuxuu leeyahay gabadhu uma diyaarsana si dabiici aba in ay cilmiga la kulmi karto. yani wuxuu leeyahay gabadha kama suurtagal aha inay wax barataa ee waxay ku fiican tahay inuu leeyahay madbaxa iyo caruurta. Aflaatoon
oo filosof ka dambeeyay isagaaba wuxuu isku dayay baa la yidhi dumarka inuu waxoogaa yidhaahdo waxaa la yaro baro oo aqoonta in yar ha looga ogolaado. falaasafadii caalamkee waaweynada ka dambaysa oo dhan baa aada ugu kacday iyagoo ku jeesjeesaya. aristofan nin la yidhahdo falaasafada hore ka tirsan ayaa riwaayad buu alifay markaa la yidhahdo annisaa almutaxadiliqaat, dumarka isxariifiyey riwaayad la yidhaahdo, oo uu ku jeesjeesayo markaa filosofa Platon waxyaabuhuu sheegsheegayo waxan oo dhan uu aada uga ceebaynayo. waa kuway raacsiisanaayeen markaa falaasafadii faransiiska ka jiri jiray caankaa sidii Molière iyo wixii lamida, ilaa Molièrekaasina isna markii dambe alifay riwaayad loo yaqaano baarlamaanka haweenka oo isna uu ku jeesjeesayo dumarka. waxaan odhan karnaa caalamka kale haddaynu guud ahaanba eegno, hunuuddu xataa ama hindidu umay arki jirin gabadha inay wax baran karto, waayo waxay idhahdaan waxbarashadu waxay u baahan tahay in la gooyo xidhiidhka qoyseed oo dhan oo qofku nooc min aruhbaaniya inuu sameeyo. gabadhana looma ogola bay leeyihin inay raahibad noqoto, saa daraaddeed waxma baran karto. xuquuqdii griigii hore markaynu eegno matalan gabadha iyo furitaanka ku saabsanaay oo kale, waxay ogolaayeen ninku oo keliya inuu wax furi karo, gabadhana waxay idhaahdaan looma ogola. hadday istidhaahda ashtakoodna ninku waa inuu wadooyinka usii galay o dib u celiyo, xaq buu leeyahy bay idhahdeen. markaan eegna qaanuunkii romanisk ama romania ninka nimankii la odhan jiray waxay rumaysnaayeen iyagu dhaqankuba wuxuu ahaa caruurta markay dhalato ayaa odayga reerka loo keeni jiray, dabeetana ilmihii yaraayo islaantu dhashay baa waxaa la dhigaa cadihiisa hoostooda. haddii uu rabo inuu qoyska ka mid noqdo ilmuhu, odaygu kor buu u qaadaa. taa macnaheed waxa weeyaan wuxuu ogolaaday in carruurtiisa lagu tiriyo. haddii aanu doonayna uu iskaga dhaqaaqi jiray, dabeetana waxaa la geyn jiray ilmaha inta la qaado meelaha ay sanamadooda iyo waxyaabaha lagu caabudo iyo fagaarayaasha la sugnada, dhulkaasa ilmaha la geyn jiray. halkaasuu ama ku beer caddaan jiray, ama gaajo ugu dhiman jiray, ama wuxuushta aydiya waxa wax cuna ku cuni jireen, ama cadceedda kuleelkeeda iyo qabowga badanoo jiilaalada dhacay ku diri jireen haddii aan qof ka qaadanin. dhaqankooda markaa wuxuu ahaa inta badan aan dumarka la aqbalin, ee haddii ilmuhu gabadhiyan halkaa laska soo dhigo. waxaa dhaqankooda ka mid ahaa inuu aabbuhu iska lahaa sultad ama awood wuxuu dhaloo dhanba marka laisku daro rag iyo dumar, inuu iibin karo, inuu eryi karo, inuu dili karo, inuu cadaabi karo, guriga inuu ku soo dari karo, inuu ka saari karo. qawaaniinta ay reer galbeedku ammaantaan ee kuwa wax ka dhambasheen ee markaas eesha romanisku lahay wuxuu sheegayaa gabadhu inay ahliya yeelato ama inay wax gabi karto ama ay awooddaa yeelan kartaa. ma dhici karta bay dhahaan 3 sababood ayaa qofka ahliyada awooddaa lagaga qaadaa: inuu da-yariyey, inuu yaalan yahay, iyo inuu gabadh yahay bay idhaahdeen. caalam kale xataa haddaynu fiirino, xamuraadi meesha la odhan jiray iyo shareecadoodii iyagu waxay rumaysnaayeen gabadhu inay xoolaha la mid tahay, oo sida xoolaha loo leeyahay in loo leeyay. odaygu inantiisa markaa waanu dili karaa, waanu haysan karaa, siduu doonu ka yeeli karaa. hindida markaad u yaacato, haddaynu caalamka o dhan eegno intaanu islaamku imanayo siduu eka, hindida markaad eegato dhaqamadoodu iyana noociyaadkaasay ku dhadhawaayeen, xad bay gaadhsiisnaayeen. matalan odaygu hadduu dhinto gabadhuna waa inay la dhimataa. odaygu markuu dhinto way gubi jireen qofka dhinta, iyadana iyadoo nool baa lasoo qabta waa lala gubi jiray, ilaa qarnigii 17aad baa lala gubayay. way hunuudda wadaadadoodu diidanayeen haba yaraatee in caadadaa la joojiyo, oo markuu odaygu dhinto gabadhuna inay la dhimato lala gubo bay ahayd. marka aynu eegno yahuudda iyo dhaqamadoodii meesha yaallay, waxay u arki jireen tawaa'if ama kooxo ka mida yahuuddu inay inanta reerku dhalaa la mid tahay khaadimka, qofka shaqaalaha inay la mid tahay. aabaheedna inuu xaq u leeyay inuu iibin karo, wax tasaruf ay leedahay inaanay jirin. bale iyagu dee kitaabadooda waxay ku sheegaan inay gabadhu malcuuna tahay. sababtuna waxa weeyaan aadam, waa soomaaliduna halka sheekada ka keentay. aadam bay idhahdaan gabadhaa ka soo saartay, waa sheeke aan jirinna. xaawaa ka saartay jannada, dabeetana gabadhu iyadaa dadka dawladda usoo tuurtay, marka waa malcuuna.
soomaalida lafteeda masalada qabi jirtay si kasta ha ahaatee waa fikrad ay iyagu rumaysnaayeen xataa tawraadooda waxay ku qoran almar'atu amaru min almowt bay yidhahdaan gabadhu way ka qadhaadhayd bay yidhahdaan geerida way ka qadhaadhay qofka saalix ee wanaagsanina waa qofkii dumarka nabad gala christianiska ama kuwan haystay diinta kiristanka kamay fogeyn arrintan dowladdii romanska markay u tageen nimankii kiniisadda ka tirsanaayo waxa kani waxay u arkeen in mashkiladdu gabadhan xorriyadda la siiyey waxyaabaha kan inay tay marka in gabadha laga fogaadaa inay diinta ka mid tay waxay dhahdeen inaan la guursan ayaa diinta ku fiican qofka aan guursanin ee ninka ah ayaa khayr oo dhami ku soo kulmay mu'tamaradooda waaweyn ee culamadoodu isugu timaado waa kiristanka qoladan iminka innaga xuquuqul binaadamka inoo sheegaysa mu'tamaradooda waaweyn ay isugu yimaadaan masalan qarnigii shanaad mu'tamaru macon ama conferencekii meesha macon la yidhaahda ka dhacay masaa'ilkii la baxsinayo culamadooda dhex yaalla waxaa ka mid ahaa war gabadha horta ma jid uunbaa mise ruux baa ku jirta culamaa isu timi waxa ay baadhayaan gabadhu miyay ruuxi ku jirtaa mise waa qoloftan sare una ruux ma leh markaasay go-aan waxa uu soo saaray majmacii kiniisadda isu yimid inuu yidhaahdo kollay ruuxda aakhiro nabadgelaysaa kuma jirto ciise hooyadii mooyaane bay dhahay islaantan ubaa laga reebay ciise hooyadii mooyaane inta kale ruuxda nabadgelaysaa kuma jirto qaarkood waxay qabeen ama mu'tamaraadka xataa roma oo taqaaniin kiniisadaha waaweyn dunida meesha looga taliyo mu'tamar ay ku qabteen ayaa waxay isweydiinayeen ama mu'tamarku wuxuu go-aamiyey fikrad odhanaysa inay gabadhu tahay xayawaan najis oo aan ruux lahayn waaritaankana aan u suubamin waxay dhahdeen xaq uma laha xataa cibaadada haddiise ay cibaadaysato bay dhahdeen afka inta laga xidho sida eyga dadcunkaa bay idhaahdeen waa in loo diidaa inay qosasho ama ay hadasho waayo bay idhaahdeen waa xubulatu shaytaan waxyaabaha shaydaan ku shaqaysto waxyaabaha aadka u qosol kale waxaa ka mid ah reer galbeedka ku faana xorriyadda maanta inoo sheegayo inay gabadha siiyeen ingiriiska 180 sano ka hor AD05 wixii ka horreeyey ninku wuxuu xaq u lahaa inuu gabadhiisa iibiyo waa xaaskiisa weliba xaaskiisa inuu iibin kara ayuu xaq u lahaa waxaa dhacday baa layidhi 1931kii 1931 baa nin gabadhiisa iibiyey waa ingiriiska gudihiisa markaasaa maxkamad la soo taagay looyarkiibaa markaa doodaya looyarku kayskiisa wuxuu ku binaynaya ku doodaya waxaa ka mid ah qaanuunka ingiriis wuxuu dhigi jiray buu leeyahay inuu ninku gabadhiisa xaq u leeyahay inuu iibiyo sidaa daraaddeed ninkan inuu iibiyaa mashkilad maaha markaasaa qaadigii wuxuu ku jawaabaya haya qaanuunkaa waxaanu joojinay 1805kii ayaa la joojiyey buu leeyahay 6 beesadood bay ahayd gabadha qiimaheedu islaanta la qabo ama ninku xaaskiisii uu qabay markuu suuqa geeyo uu iibinayo waa London gudaheeda 6 beesadood baa la siin jiray gabadha xataa inay wax lahaan karto ingiriiska waxaa la ogolaaday 1881kii 1881kii ayay soo saareen qaanuun ay u bixiyeen the married women's act oo banaynaya inay gabadha wax lahaan karto waayo umay ogoleen haba yaraatee inay wax yeelan karto xataa thawra alfaransiya ama faransiiska kacaankiisa yidhaahdaan xuquuqda iyo musaawaadka iyo sinaantuu dunida ugu dhawaaqay qaanuunkay dhigeen wuxuu sheegayey gabadhu inaanay ahal u ahayn inay caqdi contractba inay geli karto mar haddii ay tahay hayra mutasawija ilaa weligu inuu ogolaado mooyaane qaanuunkoodu wuxuu qorayay dadka ehliyada kaamilka aan lahayn ama awooddaasi contractska ay ku geli karaan aan lahayn waxaa ka mid a ilmaha yar qofka waalan iyo haweenayda qaanuunkaasi wuxuu soconayay ilaa 1938kii ila la-aanna almara almutasawija qaybaha kaga harsan taariikhda caalamka ee gabadhu taallay kaas bay ahayd haddaynu eegno carabta iyana may dhaamin ee noocaa un bay ahaayeen waayo qur-aanku si inoo tilmaamayo dee waa la xabaalnoololin jiray
ninku markuu ilmaha dhalo weliba xabaalnololisku waxay yidhahdaan farsamaad kala nooc ah ayaa loo xabaalnololin jiray oo qaarkood ilmaha markay inantu dhalato waa la dayn jiray ilaa iyo 6 jir intay ka gaadhayso markay 6 jir gaadhaabo odaygu islaanta odhan jiray inanta soo qurxi inanta markaa dhar fiican iyo wax wanaagsan loo soo xidha aabaheed baa saxaara intuu tagu god ka soo qoda uu soo kaxeeya ilmihii yaraa ee 6 jir ee lasoo qurqurxiyey godka markuu dhinaciisa mara yidhaha dayaagaabo markay egtada lagu ridi jiray qaar kale waxay isticmaali jireen islaantu markay umulaysa inta god loo qodaa la odhan jiray ku ag umul hadday wiil dhashana waa lasoo qaadi jiray haddii aanay wiil dhalinna godkaabaa la iskaga ridi jiray markaaba qaar kale iyagoo xishoonayo oo murugaysan ayay iska korin jireen dabeetana hadhow xoolahay u diran jireen in gabadha geelay reerka u raaci jirtay geel jirbay u ahaan jirtay ilaahina waa ka qur-aan ku tilmaamaya waidaa bushira axaduhum bilunha dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim yatawara min alqawmi min suu'i ma bushira bih ayumsikuhu calaa huun am yadusuhu fi turaab alaa saaa maa yaxkumuun ilaahay wuxuu sheegaya oo inoo tilmaamaya mid iyaga ka mida haddii loogu bushaareeyo in gabadhi u dhalatay waa weji madoobaadaabaa ilaahay leeya subxaana wa tacala isagoo cadhaysan oo iska qarinaya ragga iyo dadka iyo meelaha laysugu yimi in lagu arko dabeetana arrinkiisa laba uun buu ahaa isagoo ceedaysan inuu gabadha haysto iyo inuu xabaalnololiyo qaanuunka caalamka yaallay noocaas buu ahaa oo waxay ahaayeen carabtu xataa haddii la daayo iska noolaatoo la guursado hadhow odayeedu hadduu dhinto odaygu inamaduu dhalay kaweyninbaa go-a ku tuuran jiray isaga uun ciddii u guuriyaba ma guursan karto waxay ahaan jirtay dhaxalka waxba lagama siin jirin inkastoo soomaalida qaarba malaanay ka siinin laakiin waxay iyagu odhan jireen cidaan seef qaadanin oo diriir gelin dhaxal waxba kuma leh oo waxba lagama siin jirin waxay ahaayeen caadaad aada u foolxun su-aasha isweydiinta le waxay tay haddii taariikhda gabadhu aynu aada isaga soo koobnay waayo waxaanan jeclan waxaan khayr ku jirin inaan idinku badiyo ee caalamku uu caynkan ahaa yaa keenay in gabadha xuquuq loo ogolaado ma dhabbaa reer galbeedku intay si caqli ku jira u fakereen oo xuquuqul bini aadamka dhowreen oo isu tageen inay yidhahdaan gabadha xuquuq ha la siiyo halena taariikhdu daraasay u baahantay haddii gabadhu yani maadaama christianitigu diintii xooganeeda galbeed taaleyahaa falaasafadoodi iyo waxooda dhamina ay aada ugu taafireen ama uu raadeeyey afkaarta kiniisadu taallay ay ahayd baan leenahay aqoon-yahankoodu markii hore kuwa rumaysan gabadhu inay ruux leeday iyo inaanay ruux lahayn laga doodo wadcigeeda ijtimaaciga hadda bulshada halkay kaga dhacaysa waxyaabo badan la isweydiiyo waxaynu odhan karnaa xataa falaasafada maanta taariikhda laydinku dhigay ugu waaweyni qadiyatulmara dhanka kale ka wada taagnaaya waa idinka warramay aristo wuxuu rumaysnaa aflaton molier voltaire xataa falaasafadii qarnigii dhoweyd maxaa la yidhahdaa didro iyo august cont iyo molier iyo roso iyo waxaana yidhahdaan montesquieu iyo kuwana yidhahdaan dimuqraadiyadda way asal u yihiin dhammaantood waxay ahaan jireen khusuum ilmara kuwa xuquuqda gabadha diidan bay ahaan jireen haddaa goormay gabadha xaqa heshay sawtan maaha galbeedka markaynu nimi lagaba yaabo inay ragga qaarkood ka xuquuq bataanba waxaa leenahay arrintani halgan bay ku timi kuma iman caqli iyo fikrad iyo qadiyad insaannimo loo eegay laakiin waxay ku timi halgan iyo loolan iyo wax la dhacsaday waayo qaab nololeedkii hore waa yurub waxaa wax ka bedelay baa la yidhaahdaa wixii ay u bixiyeen industrial revolutionka ama athawra sinaa'iya ama kacaankii warshadaynta markii yurub ay warshadahan iyo waxa kan bilowday ayaa waxay u baahatay shaqaalo badan laybarkii raggii uu ku fillaan waayey waxay noqotay in la isku dayo in shaqaalo kale la helo waxa la jeclaystay in markaa dumarka la shaqo geliyo si warshaduhu productionkooda uu badan karo
taasi waxay fudaydisay markaa in loo ogolaado dumarka inay shaqada wax ka helaan, caruurta yaryar ee underage-ka in la shaqo geliyo. muddo markii sidii lagu waday caruurtii dad u dooda oo ka naxa oo yidhaa ayaa la shaqo gelin bay heleen, laakiin dumarku may helin. iyadoo qadaayaadku sida u socdaan baa waxaa dhacay dagaalkii koowaad ee dunida. dagaalkan koowaad ee inoo sheegayaan dee yurub u ka dhacayo, wixii yurub ku saabsan ubaa la yidhaha wixii dunida. markay iyagu isdilaan waa dunidii baa isdishay, markay nabdaan waa dunidii baa nabawday. yani dunidu waa ninkan cadiya intan ku ag wareegsan. dagaalkii koowaad ee dunida ay u bixiyeen oo ah waxay iyagu dagaalun iyaga dhex maray aan ka gedisnay dagaaladii dunida ka dhici jiray abidkeedba ayaa dhacay